dabcan waa xaaskaygii oo 25 sano ka badan aan isqabno. waa Hibo Cumar. She is the only one. maaha mid cusub, waa midii hore aad taqaaneen. aad u mahadsantiin. kaftanka walaalaha soo qoray baan maaragtay uga jawaabay. isfahanka nolosha marka in la isla fahmo quruxdan oo kale ayay samaysaa. in la isla weynaado, in la isku waaro, in ilaa jannada la isla aado. oo maxaan ku dhahdaayay la rabo in ilaahay subxaanahu wa tacaala idinku faraxsan yahay inaad ilaahay la kulantaan. marka u horeysa marka horta hadduu la yidhahdo khayr allah idin siiyo, isfahanka meesha aad u baahan tihiin guurka inaad iska fahantaan, waxa ugu horeeya waxa weeyaan in aad garato guurku inuu yahay cibaado. waxaad u guursanaysaay in uu yahay inaad ilaahay caabudo. aan idin weydiiya bilaa calaykum soo qora. aad baad uga buuqdeen oo looga qayliyey marka laga hadlo guurka ajaanibka. aad baad uga buuqdeen marka laga hadlo dareenka gabdhaha iyo maaragtay canaantooda. aad baad uga buuqdeen ood uga qaylideen dareenka ragga iyo damacooda marka ay rabaan gabadh kale inay guursadaan. waxaan isleeyahay anigu marka waxaan u baahannahay, waxaa ugu dambaysa laga qaylinaya Morocco ay Soomaaliya. haloo gudbiyo qolyihii maaragtay Morocco maaragtay ka hadlayay live-ka haloo gudbiyo insha Allah. fiiriya barakallahu fiikum. ma u malaynaysaa, waa ku celinayaa, ma u malaynaysaa marka aad xaastahay, marka aad shukaansi ku jirto ee aad rabto inaad gabadh guursato ama wiil aad ogolaato inuu ku guursado, ma u malaynaysaa in aad diyaarsanayso meeshii aad ku noolaan lahayd eed ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ku caabudi lahayd, idinka oo lamaano oo laba ah, idinka oo isku dhaweynaya ilaahay in aad raalli gelisaan. dihnigaaga iyo fikirkaaga iyo maskaxdaada ma ku jirtaa? guurka marka u horeysa marka waa maxay? waa cibaado. okay, jawaabta aan raba inaad iisoo jawaabtaan su-aashaan idin weydiinaya waxaa weeye, markaa aad guursato ma filaysaa in sidii salaadii oo kale cibaado aad ku jirto? ma filaysaa? salaada markaad ku jirto maxaa kaa jebiya? weysada maxaa kaa jebiya? maxaa lagaa rabaa salaada markaad galayso? inaad isa soo daahiriso, inaad soo weysaysato, inaad waqtigii inuu kuu soo galay la tukanayay, in aad salaada allahu akbar markaad tiraahdo inaad la timaado khushuuci oo aad present ahaad, xaadir. markaad guursatay ee aad wiilkan ogolaatay in uu mas-uul kaa noqdo ku guursado, ee aad maaragtay gabadh guursatay, ee aad ogolaatay reerkooda inta ka doonatay gabadhiinii baan rabaa aad tirood guursatay, ma ku talagelaysay inaad marka aad u naxariisanaysa xaaskaaga ilaahay aad adeecayso subxaana wa tacaala, inaad markaad ninkaaga adeecayso ee aad ixtiraamayso inaad ilaahay adeecayso subxaana wa tacaala? meeshaan aadka uga dhimanay aan idinku adkaynaya waa halkan. runtii meeshaan aadka uga dhimanay inta badan waxaa weeye uma aragno guurka inuu cibaado yahay. in badanoo inaga mid a xataa wadaadada ku dar diinta yaqaana, qof kaste uma aragno in ay cibaado tahay. haddaan u arki lahaa, haddaan u fahmi lahaa, markaan xaaskayga la hadlayo sida aan ula hadlayo istixdaar in uu maaragtay maskaxdayda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku jiro, oo aan sidaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu weydiisan lahaa, ama aan maaragtay uga xishoon lahaa, ama aan ilaahay wuxuu raalli ka yahay mahayna wax kale aan u samayn lahayn. haddaan xaaskayga ula dhaqmaya sidaas, iyadoona sidaayoo kale ay iila dhaqmayso, ma dhici kartaa inaan isqaniini lahayn? ma dhici lahayd? ma dhici lahayd inaan is aflagaadayn lahayn? ma dhici lahayd inaan is caayi lahayn? ma dhici lahayd inaan isfuri lahayn? oo midda ugu darana furiinka maxaa haddana kasii dambeeya, ma dhici lahayd inaan isdayacno oo caruurta isku dayacno? mayaan caruurta aan iskaga dhigano hub aan madaxa isaga joojino? maya.
qodobka u horreeya markiiba aan anu isul taagay waxaa weeye in aan si aan iskula fahmi karno nolosha inaan u arko guurkan cibaado inuu yahay marka ilaa khayra ku siiyo waxaan ku darayaa anigu waa sidaa aad sheegtay guurku waa cibaado yaa cibaadadana ilaahay bay ku dhaweysaa amba waa lagu weydiin kor iyo hoos waa lagu weydiin doonaa xisaab baa ku sugays yaa qof kastaba mas-uul buu yahay wixii ilaahay raaciyey ayuuna mas-uul ka yahay yaa waxa weeyaan walaalayaal labadaa qof qorshaha guurka markay bilaabayaan waxay u baahan yihiin buug ay raacaan iyo macalin ay ku daydaan labadiiba waan haysanaa buuggiina waan haysanaa kitaabka ilaahay baan haysanaa oo wax alla waxaan uga baahanay kitaabka fur kitaabka fur ma garatay waad ka helaysaa ku dayashana iyo macalinnimana nabigeeni baa noogu filan walaalayaalow subxaanallah yaa nabigeenu uma baahanin kaliya ina zayiga iyo sidaabuu u labistaa saabuu cuntada u cunaa saabuu u fariistaa kaliya maaha shakliga uun maaha waxa laga raaco waxaa laga raacaa ugu weyn waa khuluqa yaa waxaa lay soo saaruu nabigu yidhi liutamima makaarima alakhlaaq waa sidaa yaa waa akhlaaqdii oo fiican waxa la dhammaystiraya maaha mid liidata iyo mid baaba iyo mid dhiiqa dhex jiifta maaha waa midii ugu fiicnayd waxa ilaahay u keenay nabigiisa inuu dhammaystiro yaa uu meel fiican gaarsiiyo walaalayaal sallallahu alayhi wasallam alayhi salaam arrinkaas wuxuu xasuusinayaa hal shay ayuu xasuusinayaa qof walba oo nagamida raaxu raadinaya adduunkan sacaaduu raadinayaa wuxuu raadinayaa maaragtay nolol yaroo macaanoo degan ayuu raadinayaa laakiin dhinaca kale kama shaqaynayo sacaadada qof kaleu ka sugayaa sacaadadiis wuxuu ka sugayaa odaygaa hawgaba ninkuna naagtuu ka sugayaa amba xaaskuu ka sugayaa xataa ubadkaa laga sugaa ma garatay waalidka walaalaha asxaabta dadkaas baa laga sugayaa inay ku farxad geliyaan inay kaa qosliyaan inay maasha allah ku yidhaahdaan inay ku ammaanaan inay niyadda kuu dhisaan qof walba wuxuu isku xiray dad kale ayuu isku xiray yaa meesha wuxuu ka saaray ilaahiisii abuurtay oo uu addoonka u ahaa oo ilaahaygii farxad gelin lahaa ayuu ilaaway uu meesha ka saaray amba ku yar xasuustiisa ay ku yartahay walaalayaal marka xaqiiqadahan isku sheegno dayac nooga yimid xagga ku dhaqanka diinteenna ayuunbaana haysta meel kaloona naga haysta ma jirto walaalayaal marka arrinkan soo xasuusto waxay tahay waxaa la yidhi dadku sacaado way wada rabaan yaa laakiin nin walba sacaadaduu rabo isku mid ma yaa sacaadada aad adigu raadinaysid idhegaysanaya iyo sacaadadu walaalka amba walaasha ay rabto amba saaxiibka haa uu raadinayo farxadda nolosha macaan uu raadinayo nin walba sibuu u arkaa dadku isku farxad ma wada helayaan mana wada raadinayaan walaalayaal siday farxaddu waxay tahayna isku macno uma haystaan kaba soo qaad waxaa lagu leeyahay ilmuhu markuu yaryahay farxadda ugu weyn ee farax gelisa waa maxay waa alcaabin la siiyo waa geedaha uu ku ciyaarayo waxaas hooyadii iyo waalidkii oo la jooga waxaasoo dhan ayuu maad aragtay farxad ka helaa laakiin isla ilmihii markuu teenager noqdo uu dhowr iyo 10 jir noqdo ma u malaysaa farxad inuu ka helayo alcaabtii yaa wixii qadaaqidii iyo wixii yaree loo soo iibshay uu ku ciyaari lahaa oyin ma u malaysaa inay farxad gelinayso habbi ka raadinayo ilmahaas waa isla isagiya qofkii un weeyaan may waayo uu isbedelay uu kobcay uu weynaaday si kaloo adduunka hadda u arkaa marka dharkuu xiranayo saacaduhu xiranayo telefoonkiisa mobilkiisa waxaaba markuu teenager yahay farxad gelinaya kabaha ugu dambeeya dharka ugu dambeeya gabadhu makeupkeega boorsada xiranayso waxaas baa maad aragtay farxad gelinaysa oo happy ay ku noqonaysa intaa waalidka hadday ka hesho way ku filantaa isla ilmihii teenagerka ahaabaa kobcay oo weynaaday oo dhowr iyo 20 jir noqday ma garatay marka surwaalkii iyo garankii iyo shaatigu xiranay ma u malaysaa maanta inay farxad gelinayso farxadda taa ka helayo ma u malaysaa waa maya waayo jaamacad buu soo dhigtay uu soo rafaaday in shaquu galay uu dhididayaa waxaan uu kala hayo ma fududa marka wuxuu ku haminayaa inuu reer samaysto inuu guri samaysto inuu wehel inuu helo ayuu ku haminayaa farxadda xaggaasu ka raadinayaa ma u jeedaa siduu qofkii isla laftigiis uu isku babadilay walaalayaal
marka dadka isqabana waa sidaas marka sanadka ugu horeysa farxadda ay isku qabaan 5 sano markay joogaan way ka duwan tahay 10 sano markay noqdaan way ka duwan tahay maanta oo kale annaka marka ay joogaan amba ay naga weyn yihiin way ka duwan tahay 25 sano dad isqabay ma u malaysaa in maad aragtay arooseen waxay ku faraxsanaayeen inay helaan ma u malaysaa maanta inay tii tahay waa maya isku mid maaha waayo labadan qof way isla daa'imeen ya way xididaysteen waa geed xididaystay oo miro bixiyey dhowr jeer miro bixiyey ya maanta waxa weeyaan geedihii mirihiisii iniintii yaa waxay dhashay intaasoo geedoo kale ayay dhashay marka isku mid maaha walaalayaal ma garatay waxaa farxad maanta annaka noo ah ubadkaan dhalnay oo reera samaystay oo guursaday oo maaragtay baa farxad noo ah nolol macaan galay ya waxaan kusoo tacbaynay oo wanaagsanaado ilaahay noo wanaajiyey baa farxad noo ah ya marka waxa weeyaan noloshu saasay isku bedbedelaysaa marka wadadan dheer ee maaragtay journeygaas amba long journeyga aan la galayo diyaar ma loo wada yahay walaalayaal ya isfahankii haddaan kusoo noqono mar kale anigoo jawhar insha allah kaaga baxaya isfahanka xaggee laga helaa baan isweydiinaynaa meelahee loo maraa wadadee loo maraa si laysku fahmo xaguu ku jiraa biidnillah alkariim insha allah very good yani waxyaabaha